waa qaybtii 18aad qisadii la magac baxday Caashaqi hoyan waayay Hormuud baa u soo dhacay. wax aan loo dhididin laguma dheeftoodo. hani subaxii ku xigay xilli hore ayay soo toostay wayna isdiyaarisay iyadoo doonaysa inay gacalyaheeda si dhaqsi leh u soo aragto. faadumo iyo ifraax oo aan hurdada ka qasnayn ayay qolka ugu gashay iyadoo ku qaylinaysa waxay tidhi maxaad la jiiftaan yaaqay ka kaca meesha hurdada badan waa lagu xanuunsadaa ayaan maqlaye. ifraax inta soo fadhiisata ayay saacadda eegtay waaba 7 ama 1 saac subaxnimo. inta ku qosashay ayay dhahday haniyey shaqadaadii xitaa saacaddan oo kale ma aadan aadi jirin. waxaan maqli jiray naf jacayl haayo ma hargasho hurdo way nacdaa ma jiifato allay lehe saaka ayaan caddaynteeda haayaa ee bal walaalay dadka islaameed laguma kallahee iska naso. hani si walba waa laga dhaadhicin waayey inay 10 ama 4 saac subaxnimo u ambabaxaan guriga Axmed. waxay go'aan ku gaartay inay gaari tagsi ah u yeeran doonto iyo inay iyada raadsan doonto gacalyaheeda hadday toosi waayaan. ijiid aan ku jiido waa gacmadaalis. gabdhihii waxay ka dhaadhiciyaan hani inay isdejiso iyagoo u sheega mahmaah dalka Kenya caanka ah oo odhanaysa haraka haraka ha ina baraka oo micnaheedu yahay degdegsiima door ma leh. isla xilligaas waxaa cirka iyo dhulka isqabsaday roob mahiigaan ah kaasoo in muddo ahba nuuciisa oo kale uusan ka da'in magaalada Nairobi. faadumo oo ah qof waayajoog ah ayaa roobkan xooggan ee da'aya ku qiimaysay mid astaan u ah jacaylka taagta daran ee Axmed iyo hani ka dhexeeya. waxay hani si waadax ah ugu sheegtay inuu jawiga maanta qasan yahay iyadoo ku tidhi haniyey walaalay waad aragtaa roobkan dhibcaha waaweyn leh yuusanna qaadin isliina dhiiqadeedii way naga horaysaa ee balgalabta aan soo fiirina Axmed markuu xaalku isyara beddelo. ugu dambaynna waxay isku waafaqeen inay bacdalcasri isku raacaan section 3 oo ah meesha ay Axmed ka baadigoobi rabaan. qisadan la magac baxday Caashaqi hoyan waayay Hormuud baa u soo dhacay oo ah mid dhab ah waxa xuquuqdeeda leh faafin kara mas'uuliyadeedana qaadi kara Axmed Cabdikariim waayay arag page-kan ku taxnaa oo like saar qisadan oo sii socotana ka bogasho wacan. Axmed saaka waxa uu xirxiran boorsooyinkiisa wuxuu u wareegi rabaa guri ku yaala Ushriika Gaagaab oo ah xaafad yar oo isku xiran oo hal irid oo laga soo galo leh. waxaana halkaas degan milkiilaha dukaanka uu ka shaqaynayo oo lagu magacaabo maama duniyo waana saaxiibada qaaska ee habaryartii. maama duniyo ma ahan qof sidaa u sii da'weyn. waxaa u jooga wiil 8 jir ah iyo gabar 10 sano jir ah. xaajigeeda dhowr sano ka hor ayuu geeriyooday. waxay Axmed kula heshiisay inuu qaato lacag ka dheeri ah tan shaqada dukaanka oo uu habeenkiina carruurteeda layliga iskuulka ka caawiyo. Axmed waxa uu bilowday nolol ka gedisan tii hore. sida uu naftiisa ku qufulay waxa u soo iftiimay ambaqaad iyo mustaqbal horu socod leh. waxyaabaha ay habaryartii nadiifo kula dardaarantay oo sababa inuu jacaylkiisa ilbaabada ka xirto waxaa ka mid ahaa inuu waalidkii oo Soomaaliya ku sugan u shaqeeyo iyo inuu naftiisa heer sare gaarsiiyo halkii uu ku tiirsanaan lahaa qof uu muddo yar la socday. Axmed xitaa nambarkii lagu yaqiina waa uu beddelay wuxuuna qaatay laf cusub isagoo u diyaar garoobay hawl adag iyo hiigsi fog. saacaddu waxay ku sii siqaysaa 4 ama 10 saac galabnimo. jawigu wuxuu ku soo laabtay sidii hore kaliya roobkii maanta da'ay ayaa aad u wasaqeeyay jidadka islii. hani faadumo iyo ifraax oo wada socda waxay tageen section 3 guriga ay Axmed ku tuhmayeen ayayna gaareen. ku dhowaad saacad ayaa ka harsaneed xilliga ay hooyo nadiifo ka soo laabanaysay suuqa waxaase guriga ku soo dhoweeyey Salmaan iyo dhalinyaradii kale.
salmaan muddo kadib waxay is arkeen gacalisadiisii hore ee ifraax si weji furan ah ayuuna u marxabeeyey. isxaal waraysi kadib waxay gabdhihii su'aaleen wiilasha halka uu axmed ku maqan yahay. salmaan oo markii horeba ka warhayay halka uu axmed aaday ayaa ka gaabsaday jawaabta, balse xasan oo ah curadka ama kan ugu weyn reerka ayaa si lama filaana wuxuu u dhahay, axmed sida uu isbitaalka uga soo baxay wejigiisa ma qumaneen, saaka hooyo ayay israaceen, qof waddanka ka dhoofayana wuu u ekaa, war uma hayno meesha uu aaday. ileen faadumo hani uma aysan sheegin dhibaatadii axmed qabsatay. hani oo naxsan baa ku warcelisay xasan, maxaad dhahday isbitaal maxaa ku dhacay axmed ayay tidhi. hani markii looga xog waramay wixii ku dhacay axmed ooyin iyo qaylo ayay isku dartay, iyadoo calaacalaysa waxay dhahday, sooyaalkii intaan ku qornay maxaan sumad wacan u yeelnay, maxaan suuraystay waayo gayaanka midkaan ka soocday, anoo sawjaddiisi noqday, siduuna faray ilaah baan u sidnay caashaqeenna, innagoon u santaagin cidna, maxaa silacaanna marshay, ee wiilkan qalbigayga siiyey, anoo laabtayda suray, miyuu wakhtigu iseejin. kadib hani oo aan xaalkeedu qumaneen welibana isku dhex darsantay waxaa loo celiyey gurigeedii. kadib wiilashu waxay ka danqadeen murugada iyo xaaladda ay gashay hani. salmaan baa hadalka qaatay, wuxuu dhahay, weligay ma arkin laba qofood oo sidan camal isku jecel, taytaanig iyagaaba ka daran, ee niman yaho waa inaan arrintan wax ka qabannaa. xasan baa isna la fikir noqday walaalkiis salmaan, isagoo soo jeediyey in sida ugu dhaqsiyaha badan axmed loo raadiyo, arrintan xasaasiga ahna loo gaarsiiyo, isagoo dhahay, axmed qof damiir leh waaye, gabadhan lafteeda silac bay martay, ee waxaan rajaynayaa inuu xaaladdan fahmi doono. waxay isku afgarteen inuu salmaan u tago axmed oo uu ka shaqeeyo hirgelinta jacaylkan garabka waayey. hooyo nadiifo oo galabta soo yaro daahday ayaa iridda ka soo gashay, waxayna la yaabtay markii aragtay isku dhexyaaca guriga ka jiro, iyadoo dareentay in wax qayrulcaadiya uu guriga ka dhacay. salaan kadib waxay dhahday, war ii warama wiilashaydiyow, galabta askar miyaa guriga soo galeen oo baaritaan miyay sameeyeen, maxay tahay alaabtan kala daadsan. dhallinyaradii waxay bilaabeen inay isfiirfiiriyaan, iyagoo hadal meel ay ka bilaabaan garan la baa liibaan oo sheekadooda sidii cajalad u duubayay dhahay, hooyo nimankan amarkaaga inay jebiyaan ayay rabaan, axmed iyo hani jaceylkooda ayaan garab istaagaynaa ayay dhaheen. la soco qaybaha kale. qaybtanse maxaa kaaga baxay? hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan la socdo had iyo jeer, halkan uga wac oo meenshan dheh. ku taxnaaw sheekooyinka iyo muuqaallada wanaagsan uu soo bandhigayo, like na saar beejka axmed cabdikariim waaye arag, siina sheer garay.